ayaan ka maqnaa runtii aan yarayn marka si loo eego caasimadda mana fogeyna waxaan joogay cirifka gobolka halkaas oo muddo 2 sano ah ama 1 sano iyo bar ah ilaahay nabad ugu deeqay oo hadda xoogaa aan dareennay in wuxuun jirjiraan inaan habaca ka saarno meesha inta ugu badan taasay ahayd isla markaasna in uu nidaam iyo ciidan iyo canshuur iyo wuxuun aan samayno ayaan xaggaas ka soo habaynay dadkii isbaarooyinka joogay iyo wixii waa ka kaxayna meel baan ku xaraynay iyagoo khiyaar ah oo qurux badan oo labisan bay saaka meel joogaan waxaan rajaynaynaa inay ciidan fiican oo nidaamsan noqdaan ilaahay iidankii isbaarooyinkii iyo balaayadana ka raystaan galmudug in isku tashataa loo baahanya yaynaa inaan meesha fadhine inaan horta inta aad u soo soconno gobolka dhexdiisa ku soconno inaan boor ka jabnaa la rabaa muddo ayaan wax sugaynay suguddii waa habac bay naga dhigta inaan habaca ka saarno oo nafay shaydaan la dirno oo istaagnana laka rabaa waxaa suuqa iska socda iyo wararka la sheegaya wax ka jira lama arko waxaan nidaam iyo sharci iyo dastuur ahayn ma shaqaynayaan qofkii nidaamka iyo dastuurka ka cararana meel cidlaa u baktinayaa dadka iyo ummaddu waxay ku wada socdaan waa sharci iyo kala dambayn iyo nidaam ciddii annaga hadda dastuurkeega nagu soo weerartana dee kolley difaacaan ka geli doonaa laakiin annaga dastuurkeegu waa midkii soo baxay 26 maarj sanadkii hore dastuur kale ma lihin kii hore waa dhintay kan qarankana ummaddaan la wadaagna waxa kaa iyo kan qaranka ku qoran diyaar baanu nahay ciddii nagula dhaqanta ciddii aan intaas waxaan ahayn noola timaadana way iska celina ogaada galmudug way ka bixi doontaa dhaqaale xumada waa u istaagaynaa waxaygaan urursanaynaa bishaa maarj oo lagu jiro kabacdi waa in qof mushaar la oo reer galmudug aanu jiro qof allaale qofkii shaqeeya waa in mushaar hela hadduu yahay wasiir iyo hadduu yahay biyatooni inta udhaxaysa waa inaan waxaan meela ku cubi karno ku cubnaa inta kalena waa inaan ku soo saarnaa ay ku noolaadaan dadku haddii aysan wax helin ma noolaan karaan haddaysan mushaar helin ma noolaan karaan haddaan shaqo loo abuurin ma noolaan karaan shaqo waa abuuris canshuuri waa qaadis ciidan waa aruurin kabacdina waa dhergaynaa insha allahu tacaala